arrintaa maanta halka ay tahay qadiyadaasi waynu ka midaysannahay gadabuursi qadiyadaas saylac ninka ka baydhsani maanta biyihii odaygii gadabuursi inuunan ahayn baban anu waxa weeye sheegaya dadku maaha kii shalay iyaga la isku diri jiray ee la kala dabari jiray idinkuse haddaad bayne axmedkii u socotaan beelaha isaaqow idinku dawlad ma ahaanaysaan gadabuursi haddii qadiyadda laga saaro war ma ahaanaysaan xaaraan bay ka tahay inaad noqotaan halkii laga baabi'inayo Soomaaliland waa annaga waxaan leenahay war hooy dunida ayaa lagu kibrine nabad ha loo daayo laakiin duulimaad cidda lagu yahay mayna ogeyn dawladdu inay tahay dawladda saddex dawladood baa maanta isku soo kaashaday Soomaaliya Itoobiya Djibouti meel walba ka lagu shirayay arkayso ee iyada loogu shirayay ee buuga laga soo sameeyay xamar ee dir dhabo loogu shirayay ee loogu shirayay Djibouti miyay dhagalaadahay may qalbilaadahay ma indhalaada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan jecelahay maanta oonu imid in aan dhalinyarada iyo haween weynaha gadabuursi inaan hambaliyeeyo oo dhacdo hambaliyo waad mahadsantihiin dhalinyarada iyo muxuu ahaa bulshadu waxay jecel yihiin in wax loo sheego oo ay wax maqlaan way fiican tahay in wax laydin sheego laakiin waxa ka sii xun oo ka liidata waxaan dhammayn oo go'aan weli aan soo bixin in laydin sheegaa way ka sii xun tahay wax sheegid la'aanta waxaan jecelahay duqaydu maanta muxuu ahaa idinka wakiila idinka mas'uulka yihiin waxay ku jiraan dadaal aad u fara badan dareen soo jeeda oo sidiinoo kale abay qabaan way jirtaa meelo farta lagu yar fiiqayaa meeshaasina way iska daaliwoon maanta wakhtigan maanta waxaan leeyahay hambalyo dadaalkiina adkeeya damaniye warmoogaha aragtida ka diimoon aan dardaaran siiye dadku maaha kii shalay iyaga la isku diri jiray ee la kala dabari jiray dadku maaha kii shalay dacatiga warmoogaha ku danaysanayaa reer hebel ku diran jiray dadku maaha kii shalay bakhayl damac yaqaanaay marka uu dan leeyahay daasadaha u tumi jiray dadku maaha kii shalay dabar iyo hoggaaniyeenta dacayga lagu xidho rarka loogu dari jiray een daalay odhan jirin waxaan idin leenahay dhalinyaro waad mahadsantihiin insha allahu tacaala duqaydu way dadaalayaan waxgaradku wuu dadaalayaa arrintaa maanta halka ay tahay qadiyadaasi waynu ka midaysannahay waxaan leeyahay midnimadeennu ha waarto midnimada gadabuursi ha waarto Somaliland baan nahay Somalilandna jiritaankeegu ha waaro innaguna waxaan leeyahay qof kasta oo meesha aad joogto dhaguhu ha ku furnaadaan indhuhu ha ku furnaadaan diyaar garowgaagana nin walba halkiisa ha ka diyaar garoobo ma lihin ha la dagaalamo cid ha la weeraro laakiin danaheenna aan difaacanno wixii innaga danteenna aan difaacanno waxaan leeyahay ilaahay arrintahaasi cidna kuma duulayno cidna ha lagu duulo ma lihin laakiin waxaan leenahay war dadku wixii damac ah ee inagu yimaada si ha loo wada arko wixii damac ee meel inaga yimaada haddii aan hadal ku difaaci karrana hadalkaan ku difaacayna hadday xabad noqotana xabaddan inna dhulka wax kama yaalaane waxaan leenahay war hooy dunida ayaa lagu kibrine nabad ha loo daayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hore naga dhammaado soo noqnoqonaya haddana halku ka soo noqonaya iyo wejigan uu socdo ma garanayo waxa weeye waa qadiyadda saylac hadday dadkan gadabuursi wadaanna dee bayaankeega ha u soo baxdo oo gadabuursi maanta cidda qadiyaddaa ka hor timaada ee gadabuursi sheeganaysa amba kursi ha u xisho amba lacag ha u xisho amba rayr nin kale ku yidhi ha aamino gadabuursi qadiyaddaa saylac ninka ka maanta biyihii odaygii gadabuursi inuunan ahayn baban anu waxa weeye sheegaya maba ahaba waayo
nin dhulkiisii ilaahay dhigay ee dadkiisu ku beeraa ee abiida uu ku soo beeraa ee odayadiisu ku wada aasan yihiin reer lamida oo sidiisa ah oo ii sharciye leeyahayoo waxa way u baydhbaydha oo u calooliyooba oo inuu u saxeexo dooni dee reerkuuna ka dhelan ninkaasi reerka kama dhelan ha layska hubiyo waayo waxyaaba laba taabtaanaa jira buuggaasi daawal bar ciise waan wadanaa allah intii nala taallay way nala taallaa wayna nala oolaysaa cidina uma sheeganayso dhulka laakiin buuggaa qariidadaha lagu soo dhigtay magacyada site ee meel kasta le meel ciise ku sheegaya ninka gadabuursiga ka baydha maantu odayga biyihii gadabuursi maaha biyihii gadabuursi anaa u badheedhay mid kale hadday waddo taataabaan kale mid kale hadday waddo hadday dawladda xaggayga ka socoto dee cidda la dufaacayaa maanta waa dawladda malaha war bayna isku hayne gadabuursi cidda uu dufaacayaa annaga awalba qabiil baan nahay oo cidina naga rari mayse laakiin duulimaadka cidda lagu yahay mayna ogeyn dawladdu inay tahay dawladda 3 dawladood baa maanta isku soo kaashaday Soomaaliya Itoobiya Djibouti meel walba ka lagu shirayay arkayso ee iyada loogu shirayo ee buuga laga soo sameeyay xamar ee dir dhabo loogu shirayo ee loogu shirayo Djibouti miyay dhagalaadahay may qalbilaadahay ma indhalaada hadday dawladdu wada weeyaan waxaan dambe soo baxaya dawladdu waa gadabuursi ay saaqba isku haray gadabuursi dab la geliyo laga saara qariidada way isaaqalidi Soomaaliland sheegan maayo sheekada inta duulimaadka loogu yahay loo soo samaystay buugana qariidadana loo wadi waa taa hadda dawladda ay og tahay haddaad ogeyn haddaad waday adigu tanaasil iyo buruu iyo baraadan la sheegayo cidda la difaacaya waa adiga horta dhagiya indha yeelo adigu dhagiya indho yeelo dawladda haddaad waday way sheekada dhulka ka soo baxbaxays cidda kale la hadlayo waxa weeye beelahan isaaq iyo gadabuursa isku soo haray waxaad qariidada laga saarayaa isaaq gadabuursa laga saarayaa qariidada isaaqoo dawladda noqonaysa isweydii horta bal adigu reerkii isaaqoo Soomaaliland ma noqonaysa hadda labadeena isku soo harnay marka aniga layga saaro qariidada 3 dawladood iyo dadka ay wadaanba ay baabi'iyaan adigu ma noqonaysa dawlad oo Soomaaliland la yiraahdo oo dhisan ma noqonaysa war labadeena anagu xajalo weyn baan ka qabnaa Soomaaliland oo tacab iyo maal iyo wax walba way naga galeen halkan ku dhisnay tahay dhayal in lagu baabiyo ma ogolin inagoo saam isku hayna haddana waa nagaa diinay annagu in la baabiyo awdal istaadinay timaadiyo arrimo meelo kale in looga yimaado idinkuse haddaad bayni axmedkii u socotaan beelaha isaaqow idinku dawlad ma ahaanaysaan gadabuursiga haddii qadiidada laga saaro war ma ahaanaysaan xaaraan bay ka tahay inaad noqotaan halkii laga baabi'inayo Soomaaliland waa annaga haddaad moodaysaan inaad naga dambaynaysaan nagama dambaynaysaan waad arkaysaan waxa la wadana 3 dawladood iyo reer ay wadaan weeyaan de waxa weey dhankiina qabsada hawsha oo dadkii reerkii Bahabar la oran jiray habar jeclo markuu qaranku dumayo badbaadin jirayow waa laga rabaa badbaadintii uu dumaya qaranku maanta waa lagu duulay 3 dawladood baa ku soo duulay reerra way hor wadaan reerkaasi gadabuursi kuma duulimaado halka lagu duulimaadayo waa dawladda waxa nala baabinaya anagana loogu soo duulay waa difaaca dawladda difaaco gurmadu soo tara gadabuursina wixii naga dhamaaday in mi nagama dhamaana wakaad arkaysiina la wado waa baryabe ha isku haleynina dawladda alaabta alaabta oo waxa weey cidna ha doonanina cidii in soo doonatana de waxa weey hortina tagtay inay naga dambeyn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته